ciidamada dawladda ku meel gaarka Soomaaliya iyo kuwa amisom oo isgarabsanaya ayaa saaka waxay la wareegeen duleedka bari ee magaalada Muqdisho waxaana kamid ahaa deegaanada ay saaka la wareegeen deegaanka Sheekh Cali Cabdulle iyo deegaano ku dhow abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdikariin Yuusuf Aadan dhaga badan oo saxaafadda kula hadlay goobaha ay la wareegeen ciidanka dawladda ku meel gaarka Soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa waxa uu sheegay in howlgallada sii wadi doonaan maalmahan waxaan qabaa xamar waa boqolkii 99 waa xor waa laga baxay xamar dhul dhow laba joog koow waxaan qabaa meel yar ayaa xamar looga hadlay waxaan qabaa saacadaha anu ma horanayo maalmo badan ama waqti dheer ma horanayo maalmo dhow waxay noqonaysaa xamar mid la iibsata halala xamar ay xaal qaadan leedahay wixii hore lagu suubiyay ka xaal qaado ayaanu leenahay wixii ka dambeeyana waxaan ballan qaaday inaan difaacayn ciidamada dawladda ku meel gaarka Soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa markii ugu horeysay meel 30 kiiloomitir banaanka ka ah magaalada Muqdisho tagay